السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي isku soo noqosho wanaagsan mar kale iyo muuqaal kale oo qurux badan oo maalin kale oo aad u dalaal badan. Anigu waa saaxiibkii marna walaalkii Maxamed Cabdi Ibrahim. Waxaan ka codsanayaa inay tahay markii ugu horreysay aad soo boqoto channelkan ugu horreyn inaad subscribe saarto marka xigto muuqaalkan hadduu ku qanciyay inaad like gareyso si share gareyso la sii wadaagto asxaabtaada. Maanta video tutorial ah waxaan ku saabsan yahay sida remove background loogu sameeyaa fiidiyoyaasha weliba adigoo isticmaalaya application loo yaqaano CapCut. uma baahnid software, uma baahnid application kale oo mataqaanaya hacker iyo waxaan raadsid kaliya waxaad u baahan tahay inaad Play Store kala soo degtid appka loo yaqaano CapCut kadibna aad fiidiyoga dhamaysatid si aad remove background loogu samaysid sidaan oo kale. annagu Maxamuudow waa ogeyn in reaction iyo waxyaabo lamid ah iyo gabayo aad ku soo gudbiso channelkaaga laakiin maynan ogeyn inaad tutorial ku soo dartay aad iyo aad ayaadna ugu mahadsan tahay. waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamuud. waayahay markaan waxaan ugu gudageli doonaa barashada appkan loo yaqaano CapCut-ka. ugu horreyn taleefankaaga Android-ka ama iPhone-ka haddii aad haysatid aniga hadda waxaan isticmaalaa taleefan iPhone aan ku isticmaalaa application-ka waa kana ugu horreyn marka aad saan oo kale u aragto application-ka waad soo gali doontaa. aniga hadda waxbaan sii diyaarsadaa gudihiisa ku jiro waa ka baxay laakiin adiga markaad soo gashid caadi ahaan markaad gudihiisa soo gashid saan oo kale wuxuu kuu soo saari doonaa noocan waxaa taabanaya new project meesha ay ku qoran tahay taaban doontaa new project. marka aad taabat kadib waxaa soo gashan doontaa fiidiyowgii aad rabtay inaad tutorialka ka samaysid fiidiyowgii mataqaanaa backgroundkiisa ayaad soo gashanay yacni waxaan fahansiiyey waxaad soo qaadanaya background fiidiyowga background ahaanka uu isticmaal rabtay. haddana waxaan soo gashanaya fiidiyo aan hore usii diyaarsaday oo studio ah oo studioyaasha newska lagu soo gudbiyo oo kale ah. okay markaad soo gashatid backgroundkaagii wuxuu keeni doonaa meeshaan sidaan kuu soo noqon doonaa backgroundkaagii. haddii aad fiidiyo hore meeshaas gadaal ugu diyaarsatayna waa adiga, haddii aad ugu diyaarsan waa adiga laakiin kulleyba hadda aniga uu igu diyaarsan yahay hore ugu sii diyaarsaday si backgroundka dambe oo u qurux badnaado. dhaladan kalena waxaa u isticmaali doonaa idana sidoo kale background ahaan u isticmaali doonaa waa kaasa. marka fiidiyowga haddii aad sii daayana sidaas oo kale u noqonaa oo wuxuu si maasha allah meesha waxay noqonaya studio room waxay noqonaya hadda aniga soo fariistana kaba sii daranba maasha allah. marka waxaa rabaa hadda inaan soo gelino fiidiyowgii kale oo aan rabnay oo fiidiyowgeena ahaa oo background ahaanta macnaha aan kan inaan background uga dhigno aan rabnay fiidiyowgeena saxda aan soo gashanayna isla socod wanaagsan. haddana fiidiyowna ugu talagalay waa kan markaa saas oo kale u taabato waxaa taabanaya edit saan oo kale kuu soo gudbinaa marka meeshan ku keeno waxaa sameynaya waa kan hadda fiidiyowga waa kaasa backgroundkiina wuu noo diyaarsan yahay fiidiyow ahaantiina wuu noogu diyaarsan yahay. marka waxaa sameynaya backgroundkaan rabnaa hadda inaan ka qaadno oo aan maadaama magacaga ama green backgroundkiina aan isticmaalayo waxaa tegay calaamadahaas hoos wata meeshaas ku qoran tahay waa ujeedaa si fiican waa ujeedaa. waxaa tegay meesha ay ku qoran tahay content meesha ku qoran tahay tegay. okay marka saan oo kale kuu soo sawirmaa waxaa taabanaya calaamadaas geeska ay ku qoran tahay cut meesha ay ku qoran tahay tegay yacni intii dambe iska jarnay torn of cut meesha ku qoran tahay taabane kadibna uu isbuuxin doonaa tiraas meesha socoto 25 ka dambaysa dhammaystiri doonto kadibna wuxuu naga qaadi doonaa backgroundka dambe dhan oo wuxuu noo soo reebi doonaa intii yarta ahayd ee aan u baahnayn. markaas hadda wuu noo soo reebay waa ujeedin caadi ahaan. hadda marka waxaa noo dhiman hal shaqo oo ah in aan fiidiyowga sizekiisa saxno. shaqo kale way sii jirtaa laakiin shaqa ugu culus oo hadda noo dhiman waa inaan fiidiyowga sizekiisa sii saxno. fiidiyowga sizekiisa haddeertaan saxeynaa marka waa yareynaynaa marka hore intuu haddii ka yareynaynaa maadaama aysan isqabanaynin cabir ahaan waa kaasaa weli wax yaraan ku daraynaa hadda meesha la rabo taagan yahay waa kaasaa waa ujeedaa. marka hadda suu ku soo baxay fiidiyowga caadi ahaantiisii waa okay laakiin weli waxaa noo sii dhiman wax la yiraahdo ii sheeg inaan fiidiyowgii aan qurxino oo aan kalar ahaantiisa aan u ekaysiino stuudiyaha maadaama wixii wax isleh inay noqdaan laga rabo. tartiib adigoo isdhibin meesha adject ee ku qorantaa soo gal dhammaan optionadan meeshaan ku wada diyaarsan mid kastaba seeskii laga raba geey waa kuu wada cabiray waa ujeedaa. mid kastaba adiga intii aan ka dhigay lay ka dhigo haddaa rabtidna midkaa isdhaadi kan wax u yaraa ku darsan kartaa ku darsadeeda waa ka reeba kartaana ka reebo adiga adaa yaqaan kalarkaaga nooca uu kugu saxmaayo. ugu dambeyn hadda kalareynta waa dhammaan bal aan fiirin fiidiyo soo noqday.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وعن وناكسن isku soo noqosho wanaagsan mar kale iyo muuqaal wanaagsan. Anigu walaalkii Nuuri Maxamed Cabdi Ibrahim waxaan leeyahay tahay markii ugu horeysay inaad ka soo boqotaan ugu horeen inaad subscribe saartaan. maasha Allah hadda fiidiyowi waa soo dhameynay. waxaan u maleynayaa inaad barateen tutorialkan oo aan ugu talagalay kaabkan casharadan waan sii wadi doonaa ugu dambeyn. waad save garaysan doontaa video quality inta rabtaa ka dhigi kartaa waatana meeshaan ku wada qoran tahay. laakiin kulis deetan waa habka aniga aan isticmaalo oo YouTube wax soo geliyo kaas waa soo uploading gareynay dhan aasi dhihi doontaa si automatically video-gu wuxuu ku gali doonaa galrigaaga kadib ka fiiri galrigaaga si toos ah aad iPhone iyo Android kii ahaysatba waxay leeyahay asxaabay inta video-ga mid lamida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.